baad gashay taageerad baad la kulantay howlo de baaxadda le baa la oran karaa ayada waxyaabaha hadii jeer laga yaabo in maskaxdaadaba ka bixin oo u baahan deemba boogin laga qoro amba deem bulshadu iska deyso maxaad isleedahay imika bulshada waad halkan ka xusi kartaa oo aan markii horena kugu jirin dad badan laga yaabo inay daadanayn wallahi waa runta caliyo wada arrin fara badan iyo caqabado fara badan iyo hawl fara badan iyo wax fara badan baan la soo kulmay runtii anigu siyaasadda waa ku cusbaa dadka dhalinyarada ah ee wax bartay bulshadana kaalmo kala duwan ugu jiray ee shaqeynayay danta caamka iyo dantiisa gaarkaaba ku foganaa baan kamid ahaa xisbiyo siyaasadeed hore ugumaan jiri jirin oo odayaal hore kamaan soo qayb qaadan hogaamiyaal siyaasadeed oo aan la soo shaqeeyay oo aan dhismahooda ka soo qayb qaatay ma jirin marka siyaasadda barbalow baan u ahaa runtii sanadkii hore sanadkii labaad baanaan siyaasadda ku jiraa marka ay sidaas tahay waxaad sawiran karaysaa qof siyaasadda bilow ku ah aqoon-yahan ah wax bartay dhalinyar ah oo weli dee maad aragtay da'dii ay siyaasadda ku geli jireen aan gaadhin waayo da'dii siyaasadda ku geli jirnay caanka ah ee laisla wada yaqaano waxa weeyaan ninku ilaa dee konton jir buu siyaasadda ku gelay 70 jir ama 60 jir iyo 80 jirna golayaasha way ku fadhiisanayeen oo ilaa madaxweyne ku noqonayeen laakiin anigoo 30 jira oo imka waqtigii Soomaaliland uu la daa oo dadka 32 meelahaas jiray ah ayaan siyaasadda galay labadaas sanadood ayaan siyaasadda ku jira siyaasadii baa 30 jir ku gaay waxaanaan higsanayaa mustaqbal dheer oo dee ah ilaa 30 sanadood ee dambe ee cimrigeyga ka hadhay way xadiiskii rasuulka kaleey salaam salaam ayaa ahaa ummadayda cimrigeedu waa 60 inta u dhaxaysa inta 60 aanan gaadhinba ayaan anigu isleeyahay siyaasadda meel fiican ka gaadh ilaa ay madaxweynena ha noqoto hadii doonte marka 30 sanadood waa waqti fiican oo aan haysto hadii ilaahay cimrigeyga daayo oo aan gaadho oo aan nolol ku gaadho oo aanan dhiman maadaama ay dee magaranaysaa saacadu qoran tahay oo dee aad dhiman kartidba marka caqabadaha aan la kulmay dee waxa ugu mid ahaa un inaan concept siyaasadeed oo fara badan maadaama aanan haysan wax wada la yaaba oo aan islaam waxaas siyaasiyiintu ku shaqayn jireen ay mid walba ila kulmaysay mid qabyaaladeed baa ila kulantay wadad adduunkana waxaan ugu nacbaa qaadka iyo qabyaaladda qaadka iyo qabyaaladda laftarkiisii baa doorashadii beys noqdayba oo asaliyanba dabadeetana xitaa qofka guul dareystaha ayaa lagu yaqaanaa inuu xitaa go'aanka uu qaato ka noqdo marmarka qaar markay arkay xaaladdu halkay marayso waxaan go'aan ku gaadhay inaan ka noqdo sababta aan ugu gaadhayna waxay ahayd dee waxyaabo aanan islahayn weligaa way kula kulmayaan baa ila kulmay markay waxaas kula kulmaan dee haddana waad sadkeynaysaa oo waxaad noqonaysaa si aanad failure u noqonin waa inaad caqabad kasta iyo masaabiir kasta iyo kadhad kasta oo ku hor taala waa inaad xirfad iyo xeelad iyo aqoon kaga gudubtaa waxaasun baa dee maad aragtay aanu kaga gudbaynay dee waxyaabo fara badan oo dee aan iminka buug ku qorayba oo aan buug ku sameeyey oo aan isleeyahay dadka kaa dambeeya ee kula midka ah waa inkastoo dhalinyaradu iminka siyaasiyiin la shaqeeyaan oo qabyaalad qaar ku taageeraan oo ay aan anugu saaxadda helin siyaasi ama aan qabyaalad ku taageero ama aragti kale oo xambaarsan yahay aan ku taageero oo aan iska daba socdo oo aan dhiso oo aan meel walba la fadhiyo oo aan arrimaha xisbiyada kala shaqeeyo inkastoo aan anugu jaanis ka helin dee rag badan oo dhalinyaraba dee jiray iminka oo laga yaabo inay 30 jir ama dhowr 30 jirka ku galeen oo aanay iyagu intaanay golayaasha soo sharxin dad la soo shaqeeyay oo xisbiye soo dhisay oo ka soo qayb qaatay xubin ka noqday golo dhexe ka noqday siyaasi iska xambaartay oo aduu doona adeeru yahay ama adee dadku aragtay iminka iskuma raacaan iska daba galay kaasi khibrad buu helay dee aniga dhaanta anigu chance kama soo helin siyaasadda aniga ku cusub anigu iska bilaabay 10kii koobaad markaan anigu iska bilaabay waxa laaleey wixii ila kulmay iyo wixii aan ka bartay iyo jaamacaddii aan ka baxay jaamacad bay ahayd buug baan ka sameeyay waana soo bandhigi doonaa waqti dhow hadii Ilaahay ka dhigo oo sanadka dambe 2022 ka aakhirkiisa
waan daa furi doonaa waxau noqon doonaa tababar waxa uu noqon doonaa waxay ka faa'iideystaan dhalinyarada ila midka ah sidaas oo kale siyaasadda wax kasta oo dhacay iyagoo sii hayabay la kulmi doonaan haddii ay buuga akhriyaan laakiin anigu fursadda maan helin buugaan tixraaca maan hayn siyaasiyiin dee maad aragtay arrimaha ila kulmi doona ama iisii sheegay ama iisii bineexiya ama xabadee casha sida jaamacadda ay ugu dhiga dee maan helin konsebtkaa guuduun mooyaane dee aan arkeen telefishinada ka arki jiray mooyaane dee maan hayn laakiin iminka iyadoo on detail ah ayaan qoray buug ka sameeyey soo bandhigi doonaa laga faa'iidaysan doonaa haddii ilaahay ka dhigo